Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan saaxiibada qiimaha badan oo ku soo dhawaada janalka Hanaan English Officials. Waxaan ahay Ustaad Maxamed Deeq. Waxaan halkan idinkala socodsiin doonaa casharadii aad ka barateen janalka Hanaan English Officials. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa qeybihii idioms-ka ahaa, qeybteedii saddexaad, idioms part 3. Waxaynu ku bilaabeynaa idiomka ugu horeeya cashirkeena maanta waxa uu noqonayaa dog's age. Dog's age waxaa loo adeegsadaa after long period of time, macnaha markii ay waqti dheer ka soo wareegsadaan oo kale ayaa inta badan sarbeebtan la adeegsadaa. Tusaale haddaynu ka bixino, we haven't seen Aunt Sophia for dog's age for years. We haven't seen muddo dheer maynu arkin Aunt Sophia, Eedo Sophia for dog's age for years. Muddo dheer oo sanado ah kadib maxaa la yiraahdaa Eedo Sophia maanay arkin. Waa tahay idiomka labaad ee maanta casharka ku soo qaadanaynaay waxa uu noqonayaa chicken hearted. Chicken hearted waxaa loola jeedaa fulay, yacni qofka markii uu fulay yahay ama markii aad ku maxaa la yiraahdaa sifaynayso fulaynimo ayaa idiomkan ama sarbeebtanna la adeegsadaa. haddaynu tusaale maxaa la yiraahdaa aan ka bixino tusaale, Ali is a chicken hearted. Ali waa qof fulay ah because he never tried anything new. sababtoo ah weligiis wax cusub ma isku dayin. macna Ali waa qof fulay ah sababtoo ah weligiis inuu wax cusub sameeyo iskuma uusa dayin. markaysa waa tahay sarbeebta afraad ay maanta cashirka ku soo qaadanayna waxay tahay iyaduna talk through one's head. Talk through one's head macnaha waxaa loola jeedaa tani maxay inuu qof u hadlo si maala yacni ah, hadal aan macno lahayn qofka inuu ku hadlo. Talk through one's head inuu qofka ku hadlo ama ku habaaqo wax maala yacni ah. haddaan example ka bixino tusaale, he was talking through his head. maanta oo dhan qaab si maala yacni leh, si maala yacni ah ayuu u hadlayay. I couldn't understand what he was saying. waxba kama aan fahmi karayn waxa uu asaga sheegay, ma fahmaynin baniyo wuxuu sheegay. markaysa he was talking through his head. I couldn't understand what he was saying. maanta oo dhan si maala yacni ah ayuu u hadlayay oo yaa hadalkiisa waxba kama aan fahmaynin. waa tahay numberka afraad ama idiomka afraad ee maanta cashirkeena aan ku soo qaadanayna anaka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa all had and no carol. sarbeebtan inta badan waa la adeegsadaa. sarbeebtan ayaa macnaheedu waxa ay tahay yacni qof inta badan hadalkiisu badan yahay, faankiisu badan yahay, laakiin action ama ficil iyo awood aan lahayn. qof maanta oo dhan faan jecel, waxaanan samayn karaa, waxaan waan qaban karaa, waxaanan ka dhacaa, waxaanan ka boodaa dhahay, laakiin maxay haddana aanan ficilkii iyo awooddii aan waxaas lagu qaban lahaa aan lahayn. tusaale haddaynu ka bixino, we expect our president to be effective in his job. We expect our president, waxaynu ka rajaynaynaa madaxweynaheena to be effective in his job, nin shaqadiisa si fiican oo maxaa la yiraahdaa wax ku ool ah u guto inuu noqdo. Not a person who is all head and no carrot. uusan noqon maxay qof oo maxaa la yiraahdaa qowda maqashii waxna ha u qaban, yacni qof noocaasa inuusan noqon ayaynu ka rajaynaynaa. yacni waa tahay end of our lesson. okay, intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa qeybteennii maanta. kulanti dambe xiiso leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.